jamhuuriyadda Djibouti kadib markii 22 Febraayo ay qaaday go'aan cad oo iskaashiga loogu tarayo shirkadda DP World ayaa waxa maanta kor u kacay hawsha ka socota marsada Dooraale taas oo gacanta ay ku hayso shirkad maxalli ah oo lagu magacaabo SJTD. haddaba tan iyo muddadaasi ayaa waxa la wajibaarmay maraakiibtii ku soo xiranaysa dekedaha jamhuuriyadda Djibouti ee wax u shiday dalalka degmada oo Itoobiya ay ugu horeyso iyada oo dalkeenu ku yaalo goob istaraatiiji ah ayaa waxa maanta laga joogaa 20 maalmood kadib markii xukuumaddu xiriirka u jartay shirkadda DP World balse waxa taasi bedelay in maraakiib fara badan ay soo gaadhaan jamhuuriyadda Djibouti waxaana taas ay dhalisay in martadii hore ee jamhuuriyadda Djibouti oo hawlaheegu ay gaabteen laguna waday in laga guuro ay maanta soo dhaweysay 4 markab oo waaweyn oo kontaneelo u sida dalkaasi Itoobiya kadib markii si xawliya maraakiib fara badan ay u soo gaadheen marsada Dooraale. arintani ayaa waxa tusaale u noqotay in shirkadda DP World caqaba ay ku haysay hor u socodka hawlaha marsooyinka ee jamhuuriyadda Djibouti.